xildhibaano iyo senatare ka soo jeeda gobolada waqooyi oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa kulankooda kaga hadlay doorashooyinka kuraasta gobolada waqooyi, caqabadaha jira iyo eedeymo ay u jeediyeen siyaasiyiin ka tirsan golaha midowga musharaxiinta iyo gudoomiyaha aqalka sare. 40 xubnood oo isugu jira xildhibaano iyo senataro ayaa kulanka ka qayb galay waxayna ka soo saareen war murtiyeed ka kooban 6 qodob. Waxa ay sheegeen in tiro xildhibaanaha iyo gudoomiyaha aqalka sare ay caqabad ku yihiin doorashada kuraasta gobolada waqooyi, iyagoo sidoo kale golaha midowga musharaxiinta ku eedeeyay inay faragelin ku hayaan guddiga doorashada kuraasta gobolada waqooyi. Xildhibaan Guuleed Ciidruus oo war murtiyeed ay soo saareen xildhibaanada u akhriyay warbaahinta. heshiiskii golaha wadatashiga qaranka ee 27 bishii shanaad 2021 qodobkiisa koowaad farqadiisa waxa uu dhigayaa in guddiyadu iska dhex dooranayaan guddoonkooda kadib marka la soo dhammaystiro magacaabistooda. sidaas darteed ma jiro sabab kaliya oo arrimaha doorashooyinka gobolada waqooyi looga leexiyo dhabaha sharciga ah. qodobka afraad haddaba iyada oo laga duulayo qodobada kor ku xusan ee heshiiskii madaxda wadatashiga qaranka waxaanu cadaynaynaa in xubnaha guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi kulankoogii u horeeyay ay yeesheen 10kii bishii 7aad 2021 kuna yeesheen hoggaanka guddiga si waafaqsan kuna doorteen hoggaanka guddiga si waafaqsan sharciga oo ay goobjoog ka ahaayeen guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal waa fiidka. qodobka shanaad waxaanu ka xunnahay in siyaasiyiin ka tirsan golaha musharaxiinta oo leh ujeedooyin gaar ah ay weli ku foogan yihiin in ay si taban u farageliyaan doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi, dhiirigeliyaanna in guddiga doorashooyinka xildhibaanadu kala qaybsamaan. faragelintaas oo ay kala xishoodeen doorashada deegaanadooda. sidaas darteed waxaanu ku baaqaynaa in laga waantoobo faragelinta guracan ee ka dhanka ah sharciga, curfiga iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed intaba. ugu dambeyn waxaanu bogaadinaynaa siyaasiyiinta, musharaxiinta iyo cid kasta oo ka dhowrsatay inay farageliyaan sharciga sharciga baalmarsan ku sameeyaan doorashooyinka gobolada waqooyi. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo senatarada aqalka sare ayaa ku baaqay in la joojiyo faragelinta lagu hayo guddiga doorashada gobolada waqooyi, waxayna sheegeen inay soo dhaweynayaan dadaalada uu wado ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. waxaan leenahay walaalaha Soomaaliyeed ee annaga sukaya soo faynayo war annaga wada dhalanay, annaga wax naga dhaxeeyaan, runta u sheega 7 qof iyo 49 qof meel ma wada maraan. annaga majority ah, annaga hogaamintayada iskale, annaga diidayna faragelinta la nagu hayo la naga daayo faragelin ma qaadan karno. gobolada waqooyi waxay u taagan yihiin midnimada ummadda Soomaaliyeed, qarannimada Soomaaliyeed. waxayna u taagan yihiin in lagu doorto wadada lagu doorto ee loo habraaca ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed baarlamaankeeda. wax ka bedelan diyaar ma aha. saaxiibtinimo u diraya waanu iska warhaynaa guri qoraynu wada hoyanaa dadka aan jecelayn in dadkanu si fiican doorashadooda u qabsadaan ee hadimada faraha kula jira walaalayaal oo idin ognahay guryaheena waxa ka jira aan ognahay umaanaan istaagin inaan ka hadalno kana hadli mayno. waxaanu idin leenahay idinka oo mahadsan faraha kala baxa. dadka walaalaha ah ee halkan isugu yimid waxa way qof kastaba waxa waa ilaah baa bixiyo doorashada waa tartan baa jiro waxa la tartanka loo diyaar garoobo laakiin waxa leeyahay sida gudiyada loo sameeyay shaqada sida u socoto waa taageeraya uga mahad celiyo habsami u socodka iyo qaabka iyo shaqada sida uu u wado ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ah nin aan ku qanacnay daacadnimadiisa iyo cadaaladiisa. bilaabatay baashu waa bilaabatay wax walba adduunka wara 50+1
50+1 haddii la isku doortay baashu waa in dadka dhinac ka raacay noqotaa. Cabdiraxiin Caylaawe, Somali Cable, Muqdisho.